بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها فيديوغان waxaa daba socda insha Allah ta'ala kii hore ee ahaa yani calaamadaha lagu garto Soomaalida gaalada ah ee isku qarisa social media. dabcan Soomaalidaasi inta badan xeelado kala duwan ay adeegsadaan. xeelada ugu sareysa ugu weyn ee inta badan macnaha ay adeegsadaan waxay tahay yani ku gabashada dumarka. maxaan ula jeedaa ku gabashada dumarka waxa weeyaan مثلا dhowr qodob ay leeyihiin ama dhowr yani tashwiish ama shubahaad oo ay Soomaalida kale ama muslimiinta ay rabaan inay ku furaan. waxay tahay kow yani dumarka maxaa ayaga loo guursadaa oo aysan ragga wax macnaha yani loo guursan maxaa ragga loo guursan ee dumarka loo guursadaa maxaa dumarka ayaga macnaha loo furaa ee ayaga wax u furin maxaa meherka keenay in la siiyo gabadha muslimada ah oo aysan ahayn dhinac cagsigeeda ay ragga in meher la siiyo maxaa dumarka yani xijaabka loogu farad yeelay oo aysan ragga ahayn u fiirsa yani dumarka maxaa xijaabka yani ay u qaataan oo aan ragga aysan xijaab u qaadan sidoo kale maxaa loo dhahaa dumarka xishooda u fiirso xishooda maxaa loo dhahaa dumarka ragga aan loo dhihin macnaha iyo sidoo kale qodobka ugu weyn ee ah diinta islaamka waxay yani u soo degtay ama ay macnaha yani ay abaartaa ama ay la jirtaa ama taageertaa ragoo kaliya dumarka shaqo kuma laha. طيب hal qodob bal aan isu dul taagno waxyaalahan ay wadaan. dabcan qaybtan waa qaybtii labaad. qaybtii koowaad waxyaalo badan aan kusoo dulmarnay aan soo faahfaahinay. midda koowaad diinta islaamka mid hadda ugu dambeysay yani haddaan ka bilaabo diinta islaamka yacnihi raggana waxay saartay yani waajibaad laga rabo inay sameeyaan dumarkana sidaas oo kale waajibaad ayay saartay. diiniyan marka la dhaho marka rag iyo dumar waa isku mid macnaha ragga waxa laga rabo ayaa dumarka laga rabaa. wax yar waxaa jira ragga u khaas ah oo laga rabo inay sameeyaan sidaas oo kale waxaa jira wax yar dumarka u khaas ah oo laga rabo inay sameeyaan. u fiirsa yani maxaa yeelay jinsiga ama abuuridda labadan ibni aadan way kala duwan yihiin. haddaan ka soo leexano nadariyada macnaha ama aragtida yani feministiga ay qabaan haddaan ka soo leexano way kala duwan yihiin. dabcan qof walba yani maxaan ku dhahay yani qirsan yani kala duwanaanshahaasi. ka waran marka Allahi subxaanahu wa ta'ala abuuray labadan jinsi miyuusan ogeyn maslaxadda labadan qof ama labadan jinsi ay leeyihiin. cibaado markay tahay waa isku mid u fiirso dhinac walba. haddaan u imaano qodobka labaad ee ah يعني xishoodka sida dumarka looga rabaa raggana looga rabaa. hadda u fiirso yaysan ka hoos bixin sida dumarka xishoodka looga rabo ayaan ragga looga rabaa. maxaa yeelay alxayaa shucbatun min aliimaan diinta sidaasay leedahay. xishoodka wuxuu ka mid yahay qayb diinta macnaha iimaanka ka mid ah. dumarka keliya la yidhi meeshaasi waa may. rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa u timid yacnihi maxaan ku dhahay habeenay asmaa ayaa u timid radia allahu canha ayadoo weydiinaysa sida looga qabaysta caadada ayay weydiinaysay. markaasay rasuulkii allow sida caadada loo qabaystaa maxaan ku dhahay sideen sameeya. markaas rasuulku wuxuu bilaabay inuu dhaho biyaad isku shubaysaa gobkaad qaadanaysaa waa isku nadiifinaysaa kada soo hadalku u waday ayaa waxay tiri marka ila marka uu yidhi si fiican aad u nadiifinaysaa miskiga iyo maxaan ku dhahay si fiican isugu rugaysaa oo yani oo uu kormaraya rasuulka calayhi salatu wasalaam. markaas caaisha meesha joogta asmaa waxay tiri macnaha rasuulkii allow sidaan isugu tahiriyaa sidaan isugu nadiifiyaa. maxay rasuulku macnaha korow maraayay macnaha isnadiifinta iyo sida maxaan ku dhahay ugu qabaysanaysay bis korow ka maraayay macnaha ayadana waxay rabtaa faahfaahin. markaasaa rasuulka calayhi salatu wasalaam intuu xishoodo wuxuu yidhi subxaana allah tatahari weli buu ka jeestay sida riwaayaadka ay sheegaan. subxaana allah tatahari macnaha يعني إله بعيب كان زهانة إسكو ظاهري يعني معناها إسناديف يعني أو هذه يقان معناه وكلا يعني. عائشة مرك أنت قبتي جدي تري ورياه وحمكوش شجع وحلو ورسولك ولا جيدا ماشى ديجا كسب بحي آيات معناها سفي عن نظيف نساء أو أثر الدم آيات راعي سميرها ديجا له آيات كل نظيف نساء مسكي جنا كوش بيساء أما يعني سفي عن نظيف نساء ولا جيدا وفيرسا يعني رسولك أفكي سمعون صامرين أيضا معناها bannaan tahay diintan islaamka wax walbo fiqi ah ama diini ah in la waadixiyo
haddana rasuulka alayhi salatu sidaas u ahaa qof macnaha yani u xishooda calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim waa tay riwaayadaha qaarkiis ay sheegaan xishoodkiisa meeluu gaarsiisnaa marka alxayaa shucbatun min aliimaan marka la leeyahay cid uma qaas ahan labada jinsiya loola jeedaa ayib waxaan u imaanaynaa isla tan anagoo ku jirna rasuulku wuxuu ley alayhi salatu salaam xishoodka lama imaado ilaa khayr ma ahane macnaa xishoodka wuxuu yahay sidiisa waa maxay khayr marka xishoodoo dhan waa khayr rag ha ahaado ama dumar ha ahaado waxaa jira wax la dhaho madmuum ah ama diinteena ay necab tahay yani ragga iyo dumarba labada marka la fiiriyoba loo necab yahay oo ah khajal wax la dhaho annaga soomaali ahaan xayaa iyo khajal kolley ma filaayo inaan macnaha laba shay u leenahay intaan aqoonteeda ay tahay yacnihi xishood unaan dhahnaan filayaa maalan waxay tahay inaad ka xishooto xaqaada wax adiga aad doonayso inaad soo qabsan weyso soo dhacsan weyso in xaqaada lagu duudsiiyo oo aad ka xishoonayso taa islaamka u diiday laakiin xishoodka guud ahaaneed ayaa loola jeedaa midka ah raggan lagu boorinaayo dumarkan lagu boorinaayo marka ogow waan u simannaha marka ma jirto wax dumarka la yidhi xishoodkan khaaska aad leedihiin raggas aysan lahayn ma jirto haddaad idhahdo waxaa jirta yacnihi maxaan ku dhahay arrinta kale ah xijaabka haddaad idhahdo xijaabka waa cibaado sida salaada ay cibaado u tahay ayuu xijaabkana u yahay maxay cibaado sotou rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam yidhi u fiirso yacnihi qasu shawaarib shaarbaha jara waacfu lixa garkana deeya u fiirsa yani rasuulka dhahay alayhi salatu wasalaam yay u qaas tahay raggay u qaas tahay ka waran marka ninka ragga ah hadduunan rabin rasuulkana sidaa uu leeyahay bal shaarbaha in la jaro u fiirsa yani garkana la deesto waxay ka mid tahay 10 fitro ee rasuulullaahi calayhi salatu wasalaam uu noo sheegay 10 fitro ee la iska soo gaaray la iska soo dhaxlay cijiyaha in la jaro ayaa ka mid ah maalan kilkala in la iska jara ka mid ah macnaha yacnihi iyo wixii la midka ah waxaa ka mid ah shaarbaha jaridiisa ama xiiridiisa garka daysashadiisa ka mid ah waay ragga loo dhahay loogu kalifay hadduunan rabin ka waran ninka ragga ah hadda u fiiri hadduuna ninka ragga rabin ka waran maxaa loogu kalifay cagsigeeda waxaa la mid ah gabadha xijaabka maxaa iyadana loogu kalifay ayib waxaan leenahay labadaba waa maxay waa cibaado ay u siman yihiin kanna waxbaa la faray tanna waxbaa la faray u fiirsa yani waxaad u imaanaysaa nuqdada kale ee ah xagga guurka inta adyaan ee ka horraysay diinteenna inta ka horraysay ee dhinac walba ah ma aysan dhicin inay gabadha wax guursato maxaa ilaahay khalqiga asaa abuuray asagana yani yaqaana maslaxadooda asaga ilaahay tabaaraka wa tacaala abuuray yaqaana maslaxadooda yaa kula qabsan kara yaa kula doodi kara u fiirsa yani yaa kula qabsan kara maxaa waxaan u samaysay u fiirsa shirkad walba marka aan ku fiirinay indhaha reer galbeedka tusaale haddaan wax ku fiirinayno shirkadda waxay soo saarto ama qofka shaksiga wuxuu leeyahay waxaa jira wax la dhaho copyright maalan book yacnihi cajalad video ah dhar kabo wax walba ha ahaadaan go aad samaysay maalan ama funaanad aad adiga samaysay oo iska leh yani calaamadaada ama loogadaada iska leh qof kale ma qaadan karo haddii uu qaato balaayaa dhacayso copyright uu galayo waa yacnihi maxkamad iyo intaasoo ganaax dhibaataa ku dhacaysa bal xarig ayaa laga yaaba in la xiro ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigan uu abuuray ee ragga iyo dumarka u kala qaybiyey marka aan ka hadlay ibni aadamkaan ula jeedaa macnaha yaa ku qabsan kara allah subxaanahu wa tacaala miyuusan xaq u lahayn alle tabaaraka wa tacaala caqliyaddeen marka aan fiirina yar inuu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu doono miduu doono ama cidduu doono ku kalifo miyuusan xaq u lahayn marka uu leey alle subxaanahu wa tacala liman shaaa minkum an yastaqiim qofkiina doona yaa ha toosnaado oo ha rumeeyo oo islaam ha noqdo kii kalena hadduu doono macnaha marka joycekaasi ama rabitaanka lagu siinayo ujeeddada maxay tahay ujeeddada waxay tahay waxaa laguu sheegay tan waa xalaal kanna waa xaaraan waddadii toosneed waa tana waddooyinkanna way ka dhexdhexbaxaan adigay ku jirtaa qaado ama ha qaadan adigay ku jirtaa marka ragga inuu wax guursado marka oo guurka yacnihi inuu ahaado midka wax guursanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qoondayay sidaasuuna ka dhigay
islaamkii may ku qaastaa waa maya intaasi diin ay nagu horeysay sidaasay qabeen waxaad u imaanaysaa furiinka asal ahaan raggaa iskale sida guurka uu leeyahay oo kale xaalaad ayaa jira sidaas oo kale gabadha la siiyey inay ninka iska furto xaalaadkaasi haddaad waxba ka ogeyn adiga tusaale ahaan ma ahan inaad dhahda marka waxaadan aqoon inaad yacnihi dhahrafata ma aha gabadha sababaa jira ee islaamka uu leeyahay ayada xaq u leh ninkan inay iska furto la siiyey awooddaasi amaa guud ahaan sidan ay tahay waa wax ilaahay ku addoonsaday ninka waa wax ilaahay ku addoonsaday gabadha yaa ka hadli kara maxaa loola jeedaa maxaa macnaha yacni cibaaday u tahay ama loogu addoonsaday maxay tahay ilah baa naga yaqaana asaana abuuray diintaynay ku qoran tahay hadda u fiirso ma waxaad idhahaysaa marka maalan ragga siduu dumarka ula dhaqmo ee khallafsan badanaa diinta islaamka macnaha arrintaasi wadda maad idhahaysaa laa weligeeda ma aysan macnaha yani ka mid yeelan ama kama mid noqon diinteena islaamka ah inay cidna dulmiso labadan jinsi diinta islaamka marka la fiirinaayo in lagu fiirinaayo way u suman yihiin diinteena cidna ma ayna dulmin haddii dhaqankeenna soomaaliyeed ama afrikaanta ama carabta iyo wixii la midka u noqday mid noocaas ah ama dhaqanka sidoo kale reer galbeedka naftirkiisa kii shalay iyo kii maantaba si qaas ahaan oo ku fiiriyey ma adiga waxaad wax ku fiirinaysaa isha qowmiyaddan ama ummaddan ay wax ku fiirisaad wax ku fiirinaysaa ee maalin walba ama sanad walba isbeddesha u fiirso sanado ka hor 50 sano ama 60 sano ka hor reer galbeedka sida maanta ay yihiin way ka duwanaayeen u fiirsa yacni sidaas waxaa ah 100 sano ama 150 sano sida ay maanta macnaha maanta ama 50 sano ka hor ay ahaayeen way ka duwanaayeen u fiirsa islaamka ka hor yacni si ayaa loo dhaqmi jiray islaamka markuu yimid sidaas oo kale dhaqankii waa isbedelay kadib islaamkii marka uu jiray intaa oo muddo ama intaa oo sano markuu jiray qof walba wuxuu noqday waa maxay hadba inta diinta laga gaabiyey barashadeeda aqoonta diinta laga gaabiyey in dhaqan qof walba uu samaysto u gaar ah miyaana arag waddamada qaar ee islaamka ah ninka gabadha marka uu soo doonto in la karbaasho la garaaco dhaqan ay tahay waa la garaacaya ninkaa la garaacaya gabadha markuu soo doonto waa islaam ma islaama shaqo ku leh ma islaamaa jideeyey ma diintan islaamkaa sheegtay waa maya waxaad u imaanaysaa sidaas oo kale yacnihi yaradda marka aan leeyahay waxaan ula jeedaa yani sida soomaali haddaan aan u bixino wax loogu soo xiraayo cimaamada loogu soo xiraayo iyo maxaan ku dhahaye yacnihi sida loo habeynaayo iyo waxyaalaha la midka ah ma islaamka wuxuu sidaa sameeyey sida macnaha wax islaam oo qabaa mise wax dhaqanka soomaaliyeed ah maalan waxyaalahan la saaraayo ma wax islaamka sidan uu qabaa mise waa wax dhaqankeena khaas u ah marka wax dhaqanka uu samaystay hadday noqoto kalifaad hadday noqoto dhibba ha ku eedayn diinta islaamkaadan yani aqoon u lahayn ha ku eedayn maxaa yeelay diintan islaamka waxay waajib ka dhigtay tusaale ahaan maalan meherka iyo sidoo kale waxay diintan islaamka fartay ciddii awoodda inay samayso macnaha guurkaasi yacnihi maxaan ku dhahaye dartiisa u samayso yacnihi inay wax qasho inay cunto bixiso farxaddaasi in dadka ay la qaybsato hadba awooddeeda intay tahay u fiirsa yacni waxay diinta islaamka fiirisay hadba intay awooddeeda tahay marka cabdiraxmaan ibn cawf ayaa maalin maalmaha ka mid ah yani waxaa ka hor yimid rasuulullahi alayhi salaatu wasalaam waxayna ahayd madiinay ahayd macnaha oo hijradii kadib markaasaa yacnihi rasuulka alayhi salatu salam ayaa wuxuu yidhi haya cabdiraxmaan sideeta waa iswareysteen markaasaa ma guursato yidhi ha waan guursado yidhi oo ansaariyadaan guursaday markaasaa wuxuu yidhi rasuulullahi alayhi salatu wasalaam haye wax macnaha yacnihi ma u samaysay ma u qashay macnaha markaasaa cabdiraxmaan yacnihi waxaa la faray ama loo sheegay maadaama nin ganacsadana uu ahaa awlim walow bishaat waxaad yani weliimo ka dhigtaa ama maxaan ku dhahay qashaa xataa hal macnaha aribaha ka dhigee allaha ka dhigee halka ari xataa sameey macnaha yani farxaddaasi yani muuji xaflad noocaas samayso ayaa rasuulka faraya macnaha marka aan leenahay marka furitaanka iyo guurka marka aan ka hadlayna islaam ahaan waxaa jira 100 shay jeebkeen aan kala soo baxnay annaga aan kusoo darsanay
islaamka aan shaqo ku lahayn waa tii garacidii hadirtaan aan sheegayno oo kale iyo dhaqanada qaarkiisa aad taqaanaan oo mise aad aragteen oo tirada badan la koobi karin waxaad u imaanaysaa sidaas oo kale nuqdada kale